maalmo ka hor waxaa la kulmay problemkan so waxaa la kulmay problemkan oo ah micnaha in anoo haysta 294 GB kaliya ay ka bannaan tahay 928 MB wax ka yar hal GB wax ka yar marka ChatGPT aa weydiiyey qaabka u save garayn karo wuxuu ii sheegay steps-ka inaan maro inaad taabto window plus R aad dileedo cashierska inaad dileedo wuxuu ii sheegay inaad disk cleaning aa sameeyo inaa dhaho disk clean inaa sameeyo oo sida aa cleans ku sameeyo wuxuu kaloo ii sheegay inaa applicationada waaweynka iska dileedo waxaasoo dhan waa sameeyey applicationadii waaweynaa Photoshop After Effects Premiere Pro wax walba waa dileeday so intii stepski markaa maray waxaa save gareeyey keliya 1.87 GB so waxaan ku dhahay macquul maaha saacado ka hor kombyuutarkayga wuxuu sheegayay 18 GB free ku ah marka problemka ay haystaa waxay ahayd emulators aa igu furnaay Android emulators waxaa haystay 3 emulator oo intaasoo GB qaadanaya marka ani problemkan problemka ay haystaa wuxuu ahaa intaasoo emulator hal mar isku wada furnayd so si aa u xalisid waxaa isticmaalay applicationkan haddaa idin tuso maxaa la yirahdaa appska applicationada igu jira kombyuutarka wax weyn kuma jiraan kulli waa dileeday kulli still wuxuu leeyahay intaasaa kuu bannaan so saa u xalino problemkan uu fudud yahay kusoo dhawaada muuqaalka so marka koowaad waxaa la soo degtaa applicationka loo yaqaano Treesize marka as administrator usoo furay as administrator ahaan usoo furaysaa so applicationkan wuxuu kuu sheegaa local c-daada ama local d-daada ama localada ama harddiskaada ama wax walba oo space kaa qaatay meeshay ku baxeen micnaha file kasta folder kasta wax inta space loo allocate gareeyay inta space uu qaatay so marka koowaad applicationka soo gashay wuxuu ku leeyahay waxaad doorataa directory anaad waxaad dooranaa local c-deeda waxaa leeyahay meesha daatadeeda ku baxday itusi marka wuxuu itusi doonaa inta file ama folder ee qaatay daatada ugu badan kuwa ugu badan top aa lagu tusi doonaa percentagegaas aa lagu tusi doonaa marka stepska intay ka socdaan waa sugi doontaa ilaa uu kaaga dhammaynayo marka uu kuu dhammeeyo waxaa arki doontaa shay walba waxa uu qaatay program fileska meeqay qaateen src-gan hadda fiiri meeshaan meesha flatterka uu ku jiro marka waa arki doontaa hal mar u kaadi ilaa uu ka dhammaynayo inta GB uu kombyuutarka u yahay space ka bannaan so hadda saa u jeedid waa uu dhameeyey scanning wuu dhameeyey userska tagaa qaybtan userkayga waa kana administratorkan waaye marka userkayga markaa furo waxaa arki doonaa inta application ugu waaweyn ay ga qaateen hadda Android Studio wuxuu haystaa 5.6 haddaa furtid AVD ga haysta AVD waa Android Virtual Device-ka emulatorka taleefanka shidmaaya wuxuu haystaa keligiis 5. haddaada Android emulator haddaad u baahnay iska deleedi doontaa Android Studio projectska aa sameeyeen Flutter projectska Flutter waa kuwana mid walba spaceka uu qaatay Flutter projectska halkii project intuu qaatay kana ugu daran kan waxa waaye Screenball waa applicationka wax ku duuba waaye 23 GB keligiis haystaa keligiisa wuxuu haystaa marka 23 GB si u deleedid waxaa leedahay isoo fur folderkan horta archive folderka waa kana intaanu cashir micnaha wixii aad duubi jiro hal mar u kaadi wuu socdaa intaanu cashir waaye wixii recording kulli ku samayn jira so simple haddaad u baahnayn keliya waxaa leedahay okay no folderka weynka tagi delete aa dhehe iga delete gareeyaa leedahay wuu kaa delete gareynaa no so ani hadda inaad delete ma rabo meelaa ku backup gareysanaa xogtaas muhiima ii tahay so waxaa kaloo jira marka shayga aada u arkin hadda OneDrive-ka kombyuutarkayga ku jiro Microsoft Drive-ka wuxuu haystaa keligiis 8 GB so mar walba midka aada u baahnayn hadda downloadska kombyuutarkayga waxaa ku jiro 1 GB waxaan soo dejiyay applicationada meeshaas hadda applicationkan oo kale soo dejiyay applicationkan oo kale kanoo kale platformkan oo kale waxyaabaha aan u baahnayn intaa ka deleeda so marka ani hadda saas waxaa ku save gareeyey waxay ahayd awal 900 MB ku banaanay ahayd hadda waxaa ii bannaan saa u deleedayay macnaha waxyaabaha aan u baahnayn
48 GB had save gareeyay weli hadda hadday 22 GB oo screen ballkan ay uga qaatay screen ball kan oo recording 23 haddaa ku daro waa 80 iyo waxaad save gareyn karaa maya ahaa 78 camal save gareyn karaa 79 GB camal save gareyn karaa marka kan inaa meel dhigto waay ama haddaan u baahnayn recordingkan iska deleedo marka wax walba aad u baahnayn meeshaan aad ka fiirinaya waa delete gareyn doontaa wixii aad u baahnayn oo ku anficin waa iska delete gareyn doontaa so حتى program files uu ku sheegay hadda kan computerkay window inta iga qaatay 39 GB kaliya waxa qaatay window inta application ee computerkay ku jirto waxa waaye 25 GB waa application Microsoft Android Studio PostSQL Weasel Java Brave Google Git waxaan soo wad Musa Visual Studio wax inta application ku jirto application-ka u baahneen saasa ku dileedi doontaa هذا دايركتوري بدلت هدي ون درايف حتى سكان كرنت كرتا لوكال اي هذا سي هذا انت لوكال على هذا marka sidaas ku save gareyn kartaa computerkaada hadii uu full kaaya waxyaabo u baahneen in iska dileed hatta application kan wuxuu soo muujinaa dot files hada fiiri kan dhibaca ka horeyso dhibicdan micnaha hadda computerka caadi gudaha gaab ma arki kartid laakiin meeshan waa lagu soo muujinaa marka هاو مقالك إنه وحنكو سكردي فضلاً لو ذاك صاحب هذا مقالك نو لايك جري channel كنو سبسكرايب جري وكم عشان تايد أو شلون